السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاك ديني intaan videogan u gudbin please subscribe share like iyo comment fikirkaada kasoo dhiibo asxaabtaadana la share garay maan asxaabteeda sharafta leh videogan insha Allah waxaan ku sharxi doonaa qaabka ugu fudud oo aad speedkaada aad ku kordhin kartid. labada shay ugu muhiimsan ciyaartan waxaa waaye speed iyo m-kaada oo xabada meesha rabtid inaad ku ridi kartid iyo speed inaad leedahay. labada shay ugu muhiimsan m-ka xabadaha qaabka meesha rabtid inaad ku ridid kaas video aan ku sharxnay. videoga insha Allah waxaa ku sharxi doonaa speedka qaabka aad speed aad u yeelin kartid dhaqsi oo cadowgaada aad u dili kartid. dadka badanaa squadka laba squad ka dhaxbaxayaan wax kale uguma dhaxbaxaan speedka ay ugu dhaxbaxaan. qofkan intuu tartiib oo qoriga soo bixinaa ninkan waxaa arkay waa squadka dhan waa ka dhaxbaxaba. okay qodobka koowaad aad u baahantahay inaad samaysid markii aad speedkaada rabtid inaad macnaha kordhisid mar walba aad gameka aad ku jirtid in speedkaada saas noqdo. see ku samayn kartaa waxaad ku samayn kartaa qodobka intaad imaanaysaa settingka saad u jeedin anikan waa settingkay originalka soo mid waxaan tegaynaa oo eversc dadka ciyaarta bilaabayaan oo kale mujeedin baalkan saad u jeedin sprintiga kor ayuu jiraa soo waxaad samaynaysaa waa soo gaabinaysaa hoos ayaad keenaysaa midkan kala taabanaysaa weli distant speed u dhaxeeyo space u dhaxeeyo spacekaas inaad tirtirtid loo baahan see ku baabi'in karnaa waxaa ku baabi'in karnaa midkan hoose aa weyneynaysaa mujeeda more aa weynaysid more spaceka sii yaraado waa weynaysay iftiinkiisana iska yaray save garay markaas save garaysid waa kaasa waad ordaysaa maantoo dhan xawaara ayaad ku ordaysaa soo speedkii qaabka yaraa dhan waa ka nasanaysaa. kaas waa qodobka koowaad. asxaabta qodobka labaad aad iyo aad uu muhiim u yahay qodobkaasoo ah scoopka waxyaalo waxaa jira horta oo gameka markii la sameynayay oo lagu sameeyey si cadaalad oo xaq ah macnaha qofka ms-kiisa 20 yahay iyo midka ms-kiisa 200 yahay 300 inay isku mid noqdaan hal meel ay ka wada sameeyeen meeshaas oo ah scoopka markii aad furaysid iyo markaa xabadaha ridaysid labadaas mid markii aad gameka soo degsanaysid ma meel ma jiro intaad tagtid oo enable aad dhaysid ma jiro laakiin pika iyo waxyaalaha kale dhan meelaha kasoo furaysaa laakiin scoopkan iyo xabada si automatically ciyaarta waa lagu sameeyey. sidee ayaa leedahay fiiriya asxaabi aniga scoopka malaayiin jeer waa furi karaa mujida 10 jeer halkii sakan waxaan furi jiraa 10 jeer ka badan mujidin xabadan kurida xabada waa haya laakiin asxaabta big yaa la isticmaalin sababtoo big xiriir wuxuu leeyahay ms-ka goormee laakiin big isticmaali kartaa big waxaa sameyn kartaa markii aad cover aad ku jirtay sababtoo big waxaa lagu talagalay madaxaada bas inaad soo bixisid oo aad qofka ridid oo isla markiina laabatid ma lagu sameeyay inaad ku xarakootid oo adoo saan u orday qofkaas soo horbaxo aad big ku sameeysid aad ku ridid taas qalad waa asxaabay. qodobka ugu muhiimsan waa kamarada scientific-ka imaanaysa you have to in aad la qabsatid ma jirto wax maahan konton maanta ka dhigo la qabso 100 ka dhigo la qabso 200 ka dhigo la qabso 250 you have to in aad full ka dhigtid si aad more speed aad u heshid fiiriya walba aan waxaan ku dheelaa maximum 235 aan ku dheelaa 235 aan ku dheelaa soo anigoo socdo hadda xabadaha maqla isla markii waa soo jeesta gadaal xabadaha rid mujida inta joogay isla markii waa soo jeestay xabadan ku riday aadi hadii 100 ay ku tahay inta soo wareegsanaysid barada caafiya gulay waa dhibanay wallahi soomalo bakaamrada biyo alaykum dadka qaarka waxaan arkayaa fiirka midka bidixda iyo midka midigta intay weyneeyaan iskor saarayaan sidaan oo kale fiiriya midkan intoo qabana waa weyneyna midkan kaloo keena oo si kor saara oo weyneyna marka labada xabo saas intoo isku kor saara calaamad balaas oo kale x oo kale markaas soo saasoo maanta aan ku dagaaltama saaxib big mistake aad sameynaysaa haddii aad rabtid inaad speed aad yeelatid sidaan waa qalad. hadda hal waxaan kuu sheegayaa aan kuu sharxayaa brother ma isweydiisa why gameka ee u sameysay laba xabo mid midig iyo mid bidix haddii aad labada iskor saaranaysid ma hal xabo ku sameyso waxa loo sameeyay midka bidix iyo midka midigta walaalayaal midka bidixda wuxuu leeyahay speed 0.3 second oo ka sareeya midkan 0.3 second labadan farqi u dhaxeeyo ma fahamteen sakamadaas waa maxay leedahay waxa waa markii aad scoopka aad furaysid xabadaha aad ridaysid waa xabada 0.3 second kadib soo baxay oo macnaha uu ka speed badan yahay midkan soo marka asxaabta qaaliga waxa sameeyeen waa qodob muhiim xabada markaa ridaysid qofka cadowga inaad ka speed badnaataa loo baahan yahay soo waxa sameeysan midda midigta yaray
mujida zaaid u yaray iska qari iftiinkeeda meel un iska tuur midkan qabso weyneyso sidaas ku dheel saasaa kuu fudud cabitaankana more speed ayuu ku siinayaa cabitaankan is very very important dadka qaarka waxay u malayaan dhiigga bas inuu buuxiyo dhiigga bas ma buuxiyo asxaabi cabitaankan wuxuu ku siinayaa extra speed soo ma jiro wax extra speed ayuu ku siinayaa markuu full ku yahay qodobka kalena asxaabi oo aad iyo aad ka muhiimka badanaa dadka ana arka mistigada sameynayaan qoriga asxaabi markii rasaasta ka dhamaato oo aad cabeynaysid fiiriya hadda xabada ridi qoriga waa cabeynaa haddii aan cabeeyo anigoo socdo slow motion ku soconaya fiiriya waa kana orod mujida tartiiba u socda xawaari aan ku orday wuu joogsamaya marka maxaad sameynaysaa waxaa u baahan tahay qoriga inaad cabeysid adigoo speed ku socdo waxaad sameynaysaa fiiri adigoo boodaya cabey qoriga mujida xaggaasaan joogay distancegaas mujidin waa ku soo celinaa yaa had okay yaa la dhihin buuraa saaran tahay waan ka deganayaa buurtaan ka deganayaa dhulaa hadda joogaa soo maahan waa kana hadda intaan ku tijaabihiinaa fiiriya fiiri xaggaasaan joogay intaa imaaday saad u jeediin mar walba qoriga waxaad cabaysaa adigoo boodaya asxaabi taas wuxuu ku siinayaa laba shay fiiriya wuxuu ku siinayaa inaad saan u wareegsatid oo aragtid waxa soo u jiro iyo qorigaa waa sii cabeynaysaa iyo meel fogna waa sii aadaysaa fiiriya mujadin waa wareegsaday meelii waa fiiriyay qorigan waa cabaystay meel fogna waa aaday soo mar walba taas sameey qoriga cabayso adigoo boodaya asxaabta qaaliga qodob kalena oo aad iyo aad muhiim ah asxaabta qaaliga cadowgaada haddana booditaanka wax badan uu kaa caawinaya sidaan nii sheegay booditaanka hadda wuxuu kaa caawiya qoriga markaad cabeynaysid wax kalena uu kaa caawinaya cadowgaada markii aad bushgareynaysid weliga waa lagu korboodaa sababtoo booditaankaas wuxuu kaa caawinaya cadowgaada inuu confuse ku dhaco macnaha oo wareero sababtoo wuxuu kaa filinaya inaad hore kusoo baxdid adigoo hawada jirto ku arkaya taasna muhiim waaye hadda example oo kaana siina baalkan gadaasheeda cadowgeyga ku jira fiiriya baalkan benziintan gadaasheedu ku jira saana u wareerinaya inaa bidix iyo midig ka imaanaya iska dhiga isla markiina ku mujidin saas mar walba sameeya asxaabi booditaanka wax badan uu kaa caawinaya example oo kale ninkan hadduu hal xabad ugu dhufan lahaa waa dhiman lahaa asi waxaa u sawarmay inaan soo lugeynayo laakiin ma isdhiin waa soo boodaa mujidin booditaanka soo ii badbaadiyey soo mar walba hal booda asxaabi qoryaha waa inaa mar walba ku xisaabtantaa midka midigta iyo midka bidixda isku mid maaha markaad soo bixinaysid waxaa dhaqsi badan ka midigta ah sababtoo waa la soo bushgaray maahan oo kii kale isla markii wujida waa soo baxsaday sidee ku soo baxsaday i weydii marka qoriga dhinaca midig wuxuu ku jiraa speed 0.6 second speed ayaa ku jiro oo ku caawinaya dhaqsi inaad soo bixisid sababtoo ah hoosta ka soo bixinaysa fiiriya hoosta ka soo bixinaysaa midkaa laakiin koraa ka soo bixinaysaa soo intaad soo jiidaysid waqti waa ma fahamtay soo mar walba qoriga aad ugu talagashay rasaasta markuu kaa dhamaato dhinaca midigha ku jira asxaabay intaas ayaa nii sheegay example waa kana qoriga oo UMB-ga waxa uu talagala markay rasaasta iga dhamaatay inaan soo baxsado dhinaca midiga ugu jira fiiriya ninka AKM ka rasaasta iga dhamaatay isla markii UMB-gu waa soo baxsadan waan dilay hadduu ugu jiri lahaa meesha kale waa anaa dhiman lahaa kommentiyaashiina waa akhrisanayaa hal iyo hal qof walba u baahan wax inaan ka caawiyo kommentiga ku qoro waxa aan ka caawin lahaa thank you very much